الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن شركة جرائد ربنا إن كشجنا دور أرين أو كسابسن الله نحريس جنرال شيخ أحمد علي جنرال شيخ أحمد علي وحود انت الشلي وعن أجنا هيدا مانتين إنه محبوس سياسات ودولة وحرناها مدة وكل حنون صدق حبسة مقدشة وهو دريال عافمات حنون كيساس ويسوب الدلي أو نقضي عقار شو هبتيتس بي وحن كهذا اللي ورباهين تنور مر عديني دولة يجوا كنا حد ليس شخصيات جريرة ودقالكم بحنيسة وحكاها اللي ورباهين تيجوا شيء وحن شيء إنه بين عيد وحتى عذر ككنسر كوبين هاي إلهي أمر كيس حلا وحد عدين وزير كعافماتك ورباهين تقرن كشيء إن كنسر كي بيننا وقبي جنرالك وحاول جنرالك كل انتي حنون ودنتي لكن أسباب تحنونك وحا إسكاله الدولة الصومالية أو ضيعضي وحكي قبل ويسي عافمات كيسا إيجا قوري كحرتي وحبس وكحرنا إيجا يسارني داوين كيسا إيجا يسارني دريال كيسا ويضيعضي ساعدها ساعدي دي الله هدلايو جيريدا جنرالك وحا لغا جوغا وحكا بدن دور 10 ساعة دولة الصومالية سي أوفيشيال ولي وما يسان هدلين iyadoo yasaysa yani bahdilaysa wax qiimeyn aan u haynin generaalka iyo ehelkii uu ka dhintay waxa warbaahinta si aan mudnayn ula hadlay wasiirka caafimaadka ninkaas wuxuu ahaa maxbuus hadalkiisa waxa iska lahaa taliska booliiska kamaysan hadlin madaxweynaha kamuusan tacsiyeynin waxa intaas dheer waxa dawladdu ay isticmaashay qaar ka mid ah ehelada generaalka oo ay dhaqaale ku bixisay qaarkoodna ay hanjabaad dul dhigtay waxa warbaahinta la hadlay dad aanan la hadli jirin shalay markii marxuumku uu dulmanaa dad aan la hadli jirin shalay markii uu xanuunsanaa dad aan la hadli jirin shalay markii uu cadaalad u baahnaa oo ka aamusay cadaaladaas ayaa xalay warbaahinta la soo istaajiyay waxaan arkayay nin muddadii kiiskan uu taagnaa idinkan aad markhaati ka tihiin aadan hal maalin arkin inuu xalay lahaa walaalkay waaye waa ka hadlayaa kiiskiisa sheego wuxuu walaalayaa qof kastoo Soomaaliyeed wuxuu walaalayaa qof kasta oo xaqa u taagan dulmigana ka soo horjeeda waxaan intaas raacinayaa marka generaalka shalay markii uu dhimanayay inta la xukumayay dawladdu waxay sheegtay inuu tuug ahaa dawladdu waxay sheegtay inuu burcad ahaa dawladdu waxay sheegtay inuusan askari ahayn dawladdu waxay sheegtay inuusan jaran ahayn xalayna waxay reerkiisa ku qasabtay in lagu aaso isbitaalka ciidanka xoogga isbitaalkaas waxaa lagu aasaa dadka ciidamada ah ninkii aad shalay tireen tuug waaye ninkii aad shalay sida xaqdarrada u xukunteen ninkii 24 saac kiiskiisa ku soo gabagabayseen waxaan ognahay kiiskiisa kiis kale oo yani u dhawaa ama la mid ah wiil loo haystay gawar uu gubay la lahaa maxkamaddu 20 mar la keenay iyadoo 20 qiil loo raadinayo sheegowna 24 saac lagu xukumay 22 ruux waa 22 qof waxa lagu xukumay 24 saac hal nin waxa qiil loo raadinayo wax ka badan 20 mar oo ilaa hadda la leeyahay maxkamadda la rabaa in loo raadiyo إلهي سبحانه وتعالى يأتي عدالة جرتاه وحن لها دولة الصومالية نكاس واو انت وقت يسر وعد ما هذي أننا مسؤولين كرنو لكن اسبتالك حوق إن لغو آسو وحنو أرقنا تاريخ ديس إلا آس إلا الربو وحربنا نكاس ديغانكي وكسو جيدة إلا نقو آسنو إنا للسيو رقن جريرتا أننا لهور استاجيي حل معنا دا أما وزيرة دا أنا وحن لها ولا ليالو تاريخ دو إذن قريسة taariikhdu way idin qoraysaa yuusan diiwaanka idin gelin wax falxun diiwaanka yuusan idin gelin wax qaab daran sheego Axmed Cali eelkiisa nahay waxaan u baahannahay in lagu wareejiyo oo aan meesha aan inaga rabno aan ku aasanno dawladda intaas ugu baaqaya ma aragno haddaan baaritaan dalbanna in loo baarayo ma aragno iska daa wax kale waxaan la'anahay Allah u naxariisinay dawladdiina dhahdo ayaan la'anahay sidaas awgeed waxaan codsanaynaa generaalka in lagu soo wareejiyo dadka jareer weyna waxa la walaalayaal meel kasta joogtaan si yani nabad ah oo aan buuq ku jirin oo cadaalad ah generaalka ugu raadiya waxa intaas dheer 22 ruux ee generaalka lala xukumay maalin walba sidii generaalka xaqdarrada ugu dhintay inuusan ugu dhimanin oo maadaama generaalka uu geeriyooday 22 kaas ruux awlaaday lahaayeen ayaa leeyihiin xaasay leeyihiin waxaan codsanayaa in xurriyadooda la siiyo dadkaas oo aan la raacinin sheegow waxaan codsanayaa dadkaas inaan la raacinin sheegow
oo xorriyadooda la siiyo warbaahinta way mahadsan tahay haddii su'aalo qabtaan waa idinka jawaaba xalay waxaan arkaynay allah u naxariisto marxuumka walaalkiisa oo dabcan dhahaya allah u naxariisto marxuumka yaa laga daba hadlay maxay tahay cadaaladda walaalkiisa aan ka maqnayn adiga horaan kugu sheegay dadku waxay isugu jiraan saddex qayb dadna waa la khasbay siyaabaha loo khasbay dadna dhaqaalaa lagu bixiyey walaalkiis warbaahinaad ka shaqaysaa kiiska sheegow maalintii uu taagnaa ilaa maanta maadan arkin xalaa kugu horraysay laakiin maalintii sheegow la xiray ilaa maanta aniga waa taaganahay farqiga noo dhexeeya aniga isaga waa intaas igu celi annaga haddiina la siiyo waxaan u aasanaynaa sida qofka ugu sarreeya ee naga dhinta loo aasi lahaa laakiin inay dawladdu dhahdo isbitaalka ciidanka xooggaa lagu aasayaa weli waxaan u aragnaa dulmi bahdil iyo siyaasad laga leeyahay meydka marxuumka waxaa la rabaa sida loo xaqiray in meydkiisana loo xaqiro marka isbitaalka lagu aaso meydka isbitaalka generaalka meeshuu kaga yaala annaga ma garan karno berrito ma booqan karno ma u ducayn karno laakiin meelaan ognahay markaan ku aasanna wuu ka duwan yahay waaweyn oo ku aadan in sheego la sheegay in ay dawladdu dishay dabcan dad ehelkiisa qaar waxay leeyahay wiilkeennii dhalaa loo karkariyey dabcan dhalaa loo jajabiyey sunaa loogu diray waa la dilay aniga mid waan sheegi karaa asbaabta sheegoo u dhintay inay dawladdu mas-uul ka tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dilay waqtigiisaa dhammaaday laakiin waxa uu u dhintay daryeel xumo dawladeed ayuu u dhintay xanuunkan xabsi kor mu qabay wallaahi ma sheegi karno si saxa uma caddayn karno waxaa jira siyaasiyiin u arka meedka jarnaal sheegow campaign madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay inuu jarnaal ahay asagaa xilkii ka qaaday asagaa ciidankii hubka ka dhigay wuxuu muuqataa in qoraalka farmaajo lagu campaign gareynayo والله أنا فرماجو ونوجو ونكسي حسن شيخ والله ونحريست ديوان فرماجو حسن الله ونحريست كاهنا مركا عدول بو نو تعسيسه وسود ويننا إن شاء الله وما سنتي